madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhaweeyay madaxda ugu sareysa maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb ugu horeeyay madaxweynaha maamulka Ximan iyo Xeeb ku xigeenkiisa wasiirro iyo mas'uuliyiin kale. Madaxweyne qaybdiid oo loo soo gudbiyay xarunta madaxtooyada ayaa halkaasi waxaa dhankooda ku soo dhaweeyay ururada bulshada iyadoona ugu horeyn warbaahinta uu la hadlay madaxweynaha maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Kadiye kaasi oo sheegay in madaxweynaha galmudug ay ka wada arisan doonaan shirka maamul sameynta gobolada mudug iyo galgaduud. maanta waxay noo tahay farxadaas oo ay soo dhaweynayna waxaan rabnaa inaad shaqada sida ay ku socon lahayd iyo systemka u dhaqaaqi lahayd naga caawisaan hadii aan noqdo ka raali noqdo mas'uuliyadana qaas anaga nooma saarna reer gobolada dhexe oo dhan ay saarantahay meel walba ay joogaan saarto taasaan rabnaa in loola fududeeyo inaan shaqadeena si fudud ku qabsano mar walba aan u diyaar garowno base-ka aan u soconaa inuu ku salaysan yahay base nabadeed base horumar iyo base inayna wax noo dhismaan. waa mahadsantihiin. cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa dhinaciisa ka mahad celiyay qaabka wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay magaalada Cadaado. Soomaaliya madaxweyne Xamed Cabdullaahi madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha golaha wasiirada baarlamaanka iyo shacbiga halkaan ugu soo dhaweeyay aad iyo aad aan uga mahad celinayaa walaalay maaragtay runtii waa aadaan ugu faraxsanahay inaan isku nimid xilli ay jiraan muxuu ahaa duruufo adag oo dalku marayo oo ah gaar ahaan goboladan dhexe oo in loo socdo sidii loo qaabayn lahaa siday ku noqon lahaayeen nidaam midaysan. haddee waa in kaga mahad celinaya arrimaha kale sida Cabdullaahi u sheegay dib baanu iska arki doonaa bahda warbaahinta iyo shirar kale aanu qaban doonaa. waa mahadsantihiin soo dhaweynta. Assalaamu calaykum. mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Ximan iyo Xeeb iyo madaxweynaha galmudug ayaa waxay yeesheen intaasi kadib kulamo albaabada ay xiran yihiin kaasi oo dibadjoog ka yihiin saxaafadda waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda ay si wada jira ula hadlaan warbaahinta. Maxamed Maxamuud Owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.